الله ما هاد سكله وكنت نو صورة قليل أنا عاو هالك سوي معنا وأنا ذكر ما هاد علنا يا حقيقة أقبلات أقبشين حط سجى عاو إن نحزمه واعتمادان بالصومالية أنا الرب إن الكوهم بليايو إذا كوه ما هاد عليو سد حدا مع الموت وأتسمى يسمى بندق هالأبور كاه أنا وحنا أمسنا هاي إن هي هالأبور جيسين ما بدن wadata kaliya ma ahayn inay innovation kaliya ahayd waxaad qabateen iyo waxaad qorayseen soo saariseen intaas way ka balaaran tahay waxay uga balaaran tahay waa idin sheegayaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ka qayb galayaasha iyo dadka sponsor gareeyay ugu horeeyaan ganacsatada dahabshiil hormood salaama IBS aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinayaa ajar iyo xasanad allah idinka siiyo maxaa yeelay waxaad qabateen runtii waa ka weyn tahay keliya inaad sponsor garaysaan waxay ahayd dhiirigelin aad ku dhiirigelinaysaan dhalinyaradu inay maskaxdooda shiilaan oo ay aad u shaqeeyaan ay curiyaan wax soo saaraan waana runtii waxa ugu wanaagsan oo investment la geliyo weeye aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyey organizerska hawshan runtii iyadoo la og yahay in magacyo xun nalaga faafiyo sumcad xun nala siiyo ku dhiiraday inay qabanqaabiyaan oo abaabulaan oo runtii ka miro dhaliyaan inay qabsoonto aad iyo aad yaan runtii aan uga mahad celinayaa iras aad iyo aad yaan runtii dadaalka aad geliseen hawshan iyadoo kale sidaasoo kale idinkaga mahad celinaya waxay ogtihiin imageka iyo sumcadda maanta soomaaliya ee leedahay oo soo taxnaa muddo 30 sano ku dhowaada oo markii aad geliso google-ka ama markii dadka la weydiiyo soomaaliya imageka usoo baxaya markiiba wax fiican maaha marka waxa isbedeli kara waa idinka dhalinyarada wey adduunyada waxaas waa soo wada martay annaga uguma horeyno waana looga horreeyey laakiin kuwii nooga horreeyey waa ka baxeen waxay uga baxeen waxay ka heleen reference khibrad iyo ka heleen dib dambana uguma noqon mar kastoo wax ka qasmi rabaan taariikhda waxay tusaysaa inta qof oo ku dhimatay sababtii dhibkaas uu bilowday iyo wixii ay ku mutaysteen waxaas waday markii si loo fiiriyana waa dhibaato maxaa yeelay 30 sanaan ka harnay caalamka 30 sana yaan dhiig ummaddu dhex dabaalinaysay iyo dhibaatooyin iyo qax iyo abaaro iyo hadda fatahadan biyaha ah oo wax badan laga qaban karay marka in aan wax ka barana marka intaasoo idil aan marnay waxaan qabaa idinka way dadkii ka bixin lahaa dhibkaas ma aha dowladda kaliya dowladda waa sax iyadaa laga rabaa inay dadkii wax u tilmaanto oo ay shaqadeeda organize garayso oo dadka ay howlgeliso oo ay wacyi geliso ay tusaaleyso laakiin waxaa laga rabaa xooggii dhalinyaradii yaa laga rabaa sida hadda maskaxdiina u shiilaysaan inaad ogaataan dalka dagaal inuu ku jiro aad ku baraarugsanaataan sidii dagaalkaas aan uga adkaan lahayn cadowgeenna waa shabaab waa xaqiiqa cadowyo kalena waa iska jiraan soomaaliya aan doonayn inay istaagto sababaha badan awgeed waa tanaa annagoo dhib ku jirna yaa waxaad ka fikiraysaan innovation inaad wax curisaan ganacsatadii waa maal gelinayaan meel laga heli kara male intaas marka haddii lagu daro dowlad adag iyo dowlad wanaag iyo stability lagu daro waxaad garanaysaa inaan dad badan noo arki karaan khatar noo arki karaan marka dad baan rabin marka inaan gaarno meeshaas inaan gaarno marka runtii dhalinyarada aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinaya waan idinku bogaadinayaa shaqada wanaagsan aad samayseen waxaan rabaa inaan bedelo imagekaas xun oo foosha xun oo la rabo in nalagu shaabadeeyo mar walbaba si Soomaaliya loogu arko dadaan wax lagu darsan karin dalaan iimaan karin
inaan u ekaano marka intaas lagu guulaysto dadku raba inay wax maalgashadaan xaggee aadayaan lacagaha adduunka lagu maalgashado waa lacag aad fara badan trillions yaa available diyaar ah oo maalgashi la rabo in la maalgashado meelaha lagu maalgashanayo waa meelaha dowladaha degan ay joogaan meelaha amnigu uu ka jiro meelaha dadka maskaxda furan idinkoo kale ay joogaan oo ganacsatadooda diyaar u yihiin inay qaabilaan cid walba oo doonaysa inay maalgashato meelahaas way meelaha la maalgashado marka haddii marka annaga aynan u istaagin oo dowladdiinu saa sheegteen aysan ka shaqaynin stability aysan ka shaqaynin dowlad wanaag aysan kaashan dhalinyarada khaasatan idinkoo kale ah iyo guud ahaan xoogga shacabka soomaaliya aysan kaashan dad baa ka faa'iidaya intaas oo raba inaan dib u dhacno adduunyada soo marta marka wax yar aan idin tusaaleeya marka oo weliba waktiga dhow waxaan soo marnay wax ka daran soo maray ku badbaaday waxaa wadaan oo innovationka ah ku badbaaday jarmalka ka mid ah jarmalka dagaalkii labaad waxaa uga dhimatay 6 milyan shacab iyo ciidanba weliba waxaa dhintay dadkii kariimkooda ahaa oo injineeriska ahaa farsamo yaqaanadooda ahaa markii dagaalkii uu ka dhammaaday waxay geliyeen technical institutes iyo geliyeen investment ay geliyeen iyo dowlad wanaag haddana dee waxa weeye waa waddanka saddexaad ama afraad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan adduunka marka la fiiriyo Swedenka aad sheegteen oo ka soo qayb galay bandhigiina iyagana waxay ay focus gareeyeen technology iyo dowlad wanaag haddaan doonayna marka inaan ka kacno dhulka oo dalkeenna uu noqdo dal markiiba istaaga oo ka hormara afrikada kale waa inaan iyadana naftigeeda aan technologyga aan xoogga saarno iyo science-ka dowladduna ay hormood ka noqoto oo meesha ganacsatada ay ka maalgelinayaan dowladda naftigeedu policygii ay diyaariso ay abuurto institutes ay diyaariso oo technology iyo science researchiga lagu sameeyo oo dadka aruuriya oo organize gareeya oo ganacsada naftigooda ka raadiya maxaa la yidhaahdaa sponsor ka raadiya dhaqaale ka raadiya adduunka kale dhaqaale ka raadiya casumaha jaamacado iyo institutes kale casumaha waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed dad ka maskax fiican inay jiraan ma aaminsana aniga dad ka firfircoonna inay jiraan ma aaminsani sida hadda aan nologa yaaban yahay adduunka negativeka waxaan aaminsanahay in nologa yaabanaan doono positiveka haddaan aadno xaqiiqatan oo meesha hadda magac xumada aan ka leenahay negativeka inaan magac fiican aan ku keeni karno haddaan aadno dhanka wanaagsan iyo positiveka marka inaan xoojinaa loo baahan yahay si aan awooddiinna iyo maskaxdiinna iyo aqoontiinna aan sponsor garayno oo aan wax idinkugu darno idinkana dadaalkiina wada shaqadiinna iyo maskaxdiinna iyo waktigiinna iyo juhdigiinna waxaad u gelinaysaan idinka naftiina keliya maaha imageka Soomaaliya inaad wax ka bedeshaan marka waa mahadsantihiin insha Allah waa noo sanad soo socda hadduu ilaahay caafimaad iyo nolol siiyo